مركز هذه ونكسر وحن فرح سنة هيمانت إلى أو وحن فرح سنة هنا نسول وين إنه وزير كلمها كذا الديمقراطيين تا ممتلئ عبد الفرح جحا وزير الدولة إسكا قرشين تا إسكاشيا دبدا فرح محمود أو اسمه سول هذا وزير مدنيات dadka aragtaan halkan jooga waa dadka ka yimaaday Washington DC, Northern Virginia iyo Maryland waa labeentii Soomaalida intii cream of the crop rag iyo dumarba marka iyagana waa mahadsan yihiin imaashaha inuu yimaadeen waxaan jecelnahay inaan galno barnaamijka عمرنا وحد قصة حلتين يعني ماشي قدوين باتراه ذا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مرتدى شرفت له وزير له هل كان جوجا سيدي وعبد الرحمن الشيخ قيب كم ده بالشدة كنول deegaan kan ay yiraahdaan la isku yiraahdo metropolitan DC metropolitan area oo sida aad kala socotaan ay tahay dhowr state ba ku kulmo meesha marka waa dadka hadda si uu hadda Cabdiraxmaan lahaa waa maskaxmaal baa yiraahdaa waxaad soo marteen haddii aad kuuraya deegaano badan sida hadda aan warka ku hayno Ohio iyo Minnesota iyo halka dadku waa isku wada jiraa halkaas waxa weeye dadkaas maaragtay dagaalo tiraahdan professionals ayay u badan yihiin marka waa dadkii sida aan warka ku hayo wadanka Soomaalida soo hijrootay ugu horeeyay baalka soo gaaray waa dad hadda markay dani ay saatan oo kale soo timaado mooyee aan inta badan sida aad kusoo aragteen Minnesota iyo meel walba suuq walba ay la isku arkayo halka la isku arko waa dad maaragtay dantooda ay haysto waxa weeye waxa caawa sharaf inoo ah inay halkan nagu soo booqdeen wasiirada Puntland oo sida Cabdiraxmaan qorsheynta iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda qorsheynta iyo wasiirka arrimaha gudaha sala socotaan waxa weeye halkan u marahayeen ama ay soo maray wadamo dhowr ah oo North America wadamo yaana dhahin istiidiyada Mareykanka sida ugu maqaala aragtida iyaga inoo sheegi doona waxa weeye way marayaan Canada وزيرada waxay u socdeen inay bulshadooda arrimaha qurba joogta ay la kulmaan war kala qaataan wixii ay dalkii wadxun uga hayaan ay siiyaan wixii aaraa iyo afkaar ay nagu haynana aynu gaarsiino si khaas ah waxaa halkan wasiirka Juxa waa nin sidii aad ogtihiin aad bulshadu u taqaan oo ku caan baxay haddii la ku rooyahay barnaamijkii geedi caana leh geedigaas oo runtii ahaa hawl aad iyo aad ummad ugu riyaaqay Soomaali meel joogtaba ahaa in ummadda laga qayb geliyay ama si ay ka qayb galeen mustaqbalkooda oo ay muujiyeen barnaamijkaas in haddii la ku rooyahay dadka Soomaaliyeed ay diyaar yihiin bisil yihiin haddii ay helaan hoggaan u horseeda inay danahooda ay ka tashadaan waxaa laga darsay darsigaas inaynu bisilnahay Soomaali bulshada Puntland bisil yihiin dadkooda iyo dowladoodana isku kalsoon yihiin
haddii aan la kooriyo dhallinyaradii meesha joogtay ay arkeen inay mustaqbalkooda ka talin karahayaan dadkii mas-uuliyiinta ahaa lala xisaabtamayo oo ay markaa doorteen deegaanadii dadka mas-uuli lahaa dadkaasoo u dhaxaynahaya dowladda iyo shacbiga khayraadkii yarka ahaa oo lahayana ay gaarsiinahayaan meelihii looga baahnaa marka waxaa kaloo kolley jirta si waqtigu inoo siinaya ma naqaano dee haddaynu nahay dadkeenaan dibadda joogo waajibaad badan baa dalka inaga saaran waajibaad badan baa inaga saaran haatan si maaragtay qofa waa waddanku waa la xiriiraa dadka qaar baa maxaa ka samaystay laakiin waddankii baahi weyn buu qabaa innagana hadda baahi weyn baynu waddanka u qabnaa dhibaatada inoogu weyna waxaa weeye dadkeena haatan meesha wada farfadhiya waa dadkii iyagoo maaragtay bisil waddankaa yimid oo da-dooda hore oo ayna caruur ahayn caruurtaynu keena halakan waa joogaan waxaa weeye dalkiisi ay ugu laaban lahaayeen baa innagana walwal badan inagu haysa dalka marka wasiirada waxaan ogeysiinaynaa inaanu dareenka annaguna qabno caruurta haddii alla kuu ron yahay aan waddankiisi lagu keeno waddanku wuxuu u baahan yahay amniga waa lahaya waa alxamdulilah rabbilcaalamiin bal dalka haddaan puntland ka hadalno waxaa loo baahaysa awlaadda loo geeyo waxbarasho inay ka kacdo beesha oo waxbarasho la helo caafimaadna la helo intaa haddii la helo inkastoo weli shaqo iyo inkam waddanka ka soo baxayaa jirin haddana dad badan baa caruurtii tahayn lahaa laakiin dowladda risuq khayraadkeeda baa iska yar marka dadkeenaan dibadda jooga sectorska ay maalgelin ku samaysan karaan xagga wax soo saarka kalkis waxaa ka mid ah aqoontii baa ka mid ah xagga caafimaadkii inaynu howlahaas aynu inaguna aynu hayno ayaguna dowladduna ay inoo sahlaan howlahaas sidii ay dhaqso uga hergeli lahaayeen wasiirada waxaanu aada iyo aada bulshada ay ugu mahadcelinaysaa hawsha aada soo qabateen hawshii doorashooyinka aada soo qabateen hawshaasoo runtii bishay magaca iyo sumcadda muxuu ahaay puntland aanu rajaynaynana inay sidaasoo kale soomaalideena kale gobolladeena kale steedyada kale ay iyagana ilaa federaal ay hawshaa u socoto waana darsi muxuahayta ku oola waxay la tahay wasiirada kusoo dhaweynaageen muxuahayto mar labaad meeshaan ay noogu yimaadeen wixii haddii hadhow su-aale iyo su-aal keliya maahane fikradana ay qaataan wixii aynu dareen aynu qabno aynu gaarsiino ayaa loo baahan yahay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu professor waa mahadsan tahay haddana waxaan u yeerayaa walaashayo zahra maxamed cali oo u hadli doonta haweenka gobolka صعب حوجية حوجة كلمة وزير واحد المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا وهرين وزير هذا مرتضى نوعه ومير في البلوغي مت يو مرتضى أنت كلا إذا أنا بقول هاللايا مع dumarka Soomaaliyeed meel walba ha joogaan wadankii iyo dibadda iyo anigoo ku hadlaaya specifically reer Puntland waan ahayaa xalay ogaa gabdhaha reer Puntland wasiir waxaan idin leeyahay marka hore ku soo dhawaada dadkan halkan idinla joogo runtii waa dad meeshaan waqti badan deganaa mostly waa ku dhaqan guuleen aan u maleynaya hase ahaatee waa dad aad u socda isbedelka siyaasadeed tan wadanka iyo tan halkan wadankan aan degannahay labadaba aniga unfortunately uma aanan helin fursad aan la shaqeeyo labada wasiir specifically wasiir Juxa uma aanan helin fursad aan la shaqeeyo hase ahaatee
waxaan la socday waxqabadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa. waxaan aad ugu mahadcelinayaa sida clearka ah hufan uu waxqabadkiisa uu maxaan ku yiraahdaa uu meel walba uu joogo bay uga muuqato. waxaan aad ugu mahadcelinayaa daacadnimada iyo wadannimada ku jirto. in general guud ahaan Puntland waxaan rabaa inaan ka iraahdo waxay muujisay wax badan oo naga maqan, siiba jeclaanta waddankaaga, gobolkaaga, inaad gobolkaaga wax u qabatid, inaad isku tashatid. gobollada kale waxa ay dhaaftay Puntland waxa waaye inay ayaga isku tashadeen, inay ayaga wax qabsadeen, inay ayaga nabadgelyadoodii ilaaliyeen. waxaan umaleynaya waxaad igu soo xulateen oo yaa meesha ugu da'weyn baad tirahdeen meelada. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرتدى شرفت له وزير له هل كان جوجا سيدي وعبد الرحمن شيخ قيب كمدة بالشدة كنول دجان كان يراهدان لسكير هذا متروبوليتان دي سي متروبوليتان اريا وسيدا عاد كل صوتان أي تاي دور ستيت با كوكل مميشان مركب وانا دتك هدسي وهذا عبد الرحمن لها ومسكحمال بالإرادة وحصو مرتين هدي على كورة يدقان بدلنا سيدا حتى عن وكوهينو وهاي من الصوت إيو هل كادتك واسكو ذي شراء هل كسو حاوي دتك اسمارت دقاو تيرا هذا بروفيشنالز ayay u badan yihiin. marka waana dadkii sida aan warka ku hayo waddanka Soomaalida soo hijrootay ugu horeeyay baalka soo gaaray. waa dad hadda markay dani ay saatan oo kale isu timaado mooyee aan inta badan sida aad ku soo aragteen Minnesota iyo meel walba iyo suuq walba ay la isku arkayo halka la isku arko waa dad maaragtay dantooda ay وحيستو وحوي وحاول شرف إنه إن هذا كان نقصه بقدر وزير بوندلاند أو وزير ترماني قرشينته يوزير كلمة جده الدولة قرشينته يوزير كلمة جده ثالث وطن وحوي هذا كان ومرهين معي سومر ودم دورة نورث أمريكا ودم يانا لهن استديم أمريكا سيدا يقول مقالة على كل شيء نوشي دولة وحاول ويمريان كندا وزيرة وحاول السعودية يقول شدوا أرمها والبجوكة أيضا كلمان وكلاقاتان وحي أي دلكي وحنو كهيان أيسيان وحي آراء أفكار إنه هيننا أينو قارسينو si khaas ah waxaa halkan wasiirka Juxa waa nin sidii aad ogtihiin aad bulshadu u taqaan oo ku caan baxay haddii la ku rooyahay barnaamijkii geedi caana leh geedigaasoo runtii ahaa hawl aad iyo aad ummadda ugu reeyay Soomaali meel ay joogtaba ahaa in ummadda laga qayb geliyay ama si ay ka qayb galeen mustaqbalkooda oo ay muujiyeen barnaamijkaas in haddii la ku rooyay dadka Soomaaliyeed ay diyaar yihiin bisil yihiin haddii ay helaan hoggaan u horseeda inay danahooda ay ka tashadaan. waxaa laga darsay darsigaas inaynu bisilnahay Soomaali bulshada Puntland bisil yihiin dadkooda iyo dowladoodana isku kalsoon yihiin haddii la kooriyo dhalinyaradii meesha joogtay ay arkeen inay mustaqbalkooda ka talin karayaan dadkii mas'uuliyiinta ah la xisaabtamayo oo ay markaa doorteen deegaanadii dadka mas'uuliyaha dadkaas oo u dhaxaynaya
دولة يا شعبك خيرات كي يبكى هاي الهينة أي جالسين هيان ماله لوجا بحنا مركا وحكى كل شرته سو وقت وينوسينا من نقانو تيو دينو نهاية تكين عند بدل شو واجبات بدل بدل كي إنك صار واجبات بدل بدل إنك صار هذا تنسيب مع قف وودك ولا حريرة تتقارب عن هاي تكسر ليستي لكن ودك باهوي بقوا إنك هذا باهوي بيودك وقبنا دبعت ذي اللو إنه حاوي تتكين هذا الماشي ولا فرفدي هو تتكي يبغى ماركتي بسل ودك هاي وهو دود هر أنا حرور هين حرورت إنه كان هذا كان وشوغان وحاوي dalkiisi ay ugu laaban lahaayeen baa inagana walwal badan inuu haysa dalka marka wasiirada waxaan ogeysiinaynaa inaan dareenka anaguna qabno caruurta haddii alla ku roon yahay aan wadankiisi lagu keeno wadanku wuxuu u baahan yahay amniga waa lahayaa waa alxamdulilah rabbil caalamiin bal dalka haddaan puntland ka hadalno waxaa loo baahaysa awlaada loo geeyo waxbarasho inay ka kacdo beesha oo waxbarasho la helo عافظان الهلو انت هدي له انك سوي شقو انك مقدم كسب بحياه جرين هذا انا ضد ضد عرورتي جاينها لكن دولتي السوق خيرات كذا اسكير انا ضد كان عند بد شوغا سكتر اسكا اي مال قليل سميسن كران حاجه وصوصات كذا وحكمنا حقومت باكبده حاجه عافيتكي ان هولهاس ان نغنا انو حينو ايغنا دولتنا اي انو سهلان howlaha sidii ay dhaqso uga hirgeli lahaayeen ujeedada waxaanu aad iyo aad bulshada ay ugu mahadcelinaysaa hawsha aad soo qabateen hawshii doorashooyinka aad soo qabateen hawshaas oo runtii bishay magaca iyo sumcadda muxuu ahaayey puntland aanu rajaynaynana inay sidaas oo kale soomaalideena kale gobolladeena kale isteedyada kale ay iyagana ilaa federaal ay hawsha u socoto وانا درسي محايتكو وحقوله وحيلتها وزيرده وكسو دوين ناقين محايته مرلبات ميشان النووية مادين وحي هدي هدو سؤال ايو سؤال كريم ماهاني فكرة انا اي قاتان وحي انو درين انو قبنا انو قاسينو اي لو باهي هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بروفيسور ومحسنتهاي هادنا waxaan u yeerayaa walaashay Zahra Maxamed Cali oo u hadli doonta haweenka gobolka صعب حوجيه xogaa ودي وزير واحد المهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا السلام يا وهرين وزير هذا مرتضى نوعه وميرفع بلوغي مت يو مرتضى أنت كلا أو إذا أنا بقول هاللايا مع دمر الصوماليات ميرول بهجوبان وطنكي يدبده يو أنا بقول هاللايا specifically كنت أنا وأنا حياة حلي وبعد قبل حريت كنت وزير وحن إذن الله يهي مركه ركوسو دوادا ضد كان هل كان إذن لجو وقمت واضد ميشان وقت بدن دقناء mostly waa ku dhaqan guuleyn aan u maleynayaa hase ahaatee waa dad aad u socda isbedelka siyaasadeed tan wadanka iyo tan halkan wadankan aan deganahay labadaba aniga unfortunately uma aanan helin fursad aan la shaqeeyo labada wasiir specifically wasiir Juxa uma aanan helin fursad aan la shaqeeyo hase ahaatee waxaan la socday waxqabadkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa waxaan aad ugu mahadcelinayaa sida clearka ah hufan waxqabadkiisa uu waxaan ku yiraahdaa
meel walba uu joogo bay uga muuqato waxaan aad ugu mahadcelinayaa daacadnimada iyo wadannimada ku jirto in general guud ahaan Puntland waxaan rabaa inaan ka iraahdo waxay muujisay wax badan oo naga maqan siiba jeclaanta waddankaaga gobolkaaga inaad gobolkaaga wax u qabid inaad isku tashatid gobolada kale waxa ay dhaaftay Puntland waxa waaye inay ayaga isku tashadeen inay ayaga wax qabsadeen inay ayaga nabadgelyadoodii ilaaliyeen oo policy qoran oo dawlad kasta Puntland timaada inay ku shaqeyso aan rabno oo aan ku guda jirno taasoo aan kala tashan doono dadka qurbaha jooga oo reer Puntland sidee siyaasaddaas u ekaan doonto maxaa yeelay inay waa stakeholder weyn marka in isla tashigaas iyo siyaasaddaas sidee u ekaanayso qayb ka noqoto waxay fududeynaysaa hadhow siyaasaddii markii la fulinayo ay wax ka dhisteen oo tala ku lahaayeen ay noqonaysaa wax dusha looga keenay ma noqonayso haddaan usoo noqdo safarkan sidaan sheegay wuxuu ahaa engagementii aan la sameynayno dowladahaas sidaa ka warqabtaan madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani iyo wasiiro aad u fara badan Nairobi tageen wadamada Soomaaliya danaya bay la kulmeen kulamo kala duwan donorska la kulmeen hay'adaha deeqda bixiya oo Soomaaliya maalgashiga dhinaca development iyo humanitarian ku sameeya kadibna safar madaxweynaha iyo wufuud la socota inay North America yimaadaan iyo madaxweyne ku-xigeenka inay Yurub aadaan qorshahaasaa jiray nasiib darro madaxweynaha safarkii North America duruufo jira awgeed dib ayuu u dhigay wasiir Juxa oo shir oo hay ka dhacay u yimid iyo aniga oo markii hore u yimid gogol xaar shirka madaxweynaha safarka madaxweynaha ayaa madaxweynuhu marka wakiil nooga dhigtay in aan hawshii meesha ka sii wadnay aysan baaqan so far waxaan la kulanay jaaliyadda Ohio oo wasiirku tagay iyo jaaliyadda Minnesota oo aniga isaga aan la wada kulanay kulamo kala duwan kuma koobna kulamada iyadoo marka dadka Puntland ka yimid kaliya Soomaalida kale oo gobolada kale ka timid iyo cid kastoo danaynaysta mustaqbalka Soomaaliya sidoo ekaanayo oo rabta inay Puntland kala xaajooto aragtida Puntland inaan la wadaagno ayaan diyaar u ahayn oo sameynay aragtiyada ka duwan aragtida aan qabnana inaan dhageysano ayaan diyaar u nahay maxaa yeelay dalka waa wada leenahay sidoo way ekaanayo kuma xirnaanaysa hal koox fikradda ay qabto waxay ku xirnaanaysaa kulligeen fikradaha kala duwan ee qabno iyo sidii fikradda dhexdhexaad ah looga soo saari lahaa oo ummadda Soomaaliyeed dib isugu soo celin karta qarannimadoodiina dib u yeeleeli karta dawlad ay wada leeyihiin taladeeda iyo dhismaheedana wada leeyihiin lagu heli lahaa halkaan markaan nimi kulamo nood diyaar garaysnaa baa jiray runtii maalmihii la soo dhaafay aan galnay kulamadaas si fiican bay u dhaceen kulan maanta dhacay oo State Department aan la kulanay madax sarsare oo kamid ahaa kulamadan galnay runtii waxaan dhihi karaa 90% waxaan ka hadlaynay arrimo Soomaaliyeed ee dan arrimo Puntland maxaa yeelay danta Puntland danta Soomaaliyeed bay ku dhex jirtaa waxyaabahan ka hadalna waxaa kamid ahaa ama aan ka wada niqaashnay amniga iyo stability-ga regionka geeska Afrika oo dhan oo hadda aad moodid khatar inuu ku jiro khatartaasoo labada arrimood hadda ugu waaweyn khatarta gelin kara ay kamid tahay MOU-gii ee wada saxiixdeed Ethiopia iyo Somaliland iyo arrimaha kale oo soo biiray oo ah Masar haddii ay Soomaaliya timaado maxaa dhici kara oo ah arrimo inagana ka baxsan oo laga yaabo dhibaatadii ina haysatay awal baynu qaadi weynay dhibaatooyinka waaweyn wadamo interest isku dilaya inay nagu dul dagaalamaan marka arrimahaas khatar weyn bay Soomaaliya ku leedahay Soomaaliya oo dhanna inaysan meel dhow wax ka fiirin meel dheer wax ka fiiriso oo inaan cidna victim u noqon balse inaga godka aan ku dhacnay sida uga soo bixi lahayn baan la ku faadhaceynaa taas inaan focus ka saarno arrimaha bini'aadanimada kamid ah waxaan ka wada hadalnay iyo waddanka sidii regionska jira oo member stateska ah iyo dowladda federaalka kalsoonidii dhuntay loo soo celin lahaa loo wada shaqayn lahaa dialogue loo sameyn lahaa iyo doorashada soo socota sida u ekaan doonto muddo badan kama dhimana kolley arrintaas waxaa expert ku ah oon u daynayaa wasiir Juxa arrintan raba inaan uga baxo waxay tahay ajendayaasha waxaa noogu jiray siyaasadaha cusub oo Puntland waxaa ka mid noqon doonta oo go'aan lagu gaaray in la sameeyo wax la yiraahdo Puntland Development Fund oo ah sanduuq
horumarka Puntland loogu adeego sanduuqaas waxaan rabnaa inay ku mataanoobaan dowladda Puntland ganacsatada Puntland iyo qurbo joogta Puntland runtii waxaad moodaa Soomaaliya dhowr iyo 30 sano ayaynu ku jirnay dowlad la'aan dhowr iyo 30 sano baa caalamku lacag ku guurayay Soomaaliya mar abaar ku dhacdo mar fatahaad ku dhacdo mar colaad ku dhacdo waa la ina ka daalay runta haddaad doonaysaan dowlado badan oo awal interest ku ahaan jiray waa ka daaleen Soomaaliya marka haddayna inagu isdaba qaban oo dalkeena badbaadin cid inoo imaanaysa oo inoo badbaadinaysa ma jirto sidaa awgeed maadaama fatigue uu jiro donorskii Puntland waxay ka fakartay inaysan dependent ku noqon mataqaana taxi payers wadamo kale wax laga soo qaaday laakiin kheyraadka ay haysato oo runtii aad u ballaaran badda Soomaaliya marka la qiyaaso 3,300 kilomitir 1,666 kamid ah Puntland dhulkeeda ayuu ku badeeda weeye baddaas oo ilaa 3 badood badda Indian Ocean-ka gacanka cadmeed iyo Red Sea isugu yimaadaan kheyraad kalluun oo ka buuxo kalluunkeediina wadamo kale ay daldalanayaan inagina aan ka gaajaysanahay marka Soomaaliya markaa fiirisid xikmad waxay jirtay Soomaalidu tiraahdo ratigii biyaha xambaarsanaa oo haraadka u dhintay waxaan nahay dal qani ah dadkeenina silic bay u dul dhimanayaan hoostiisana wuu ceegaagaa sidii marka kheyraadkaas loo taabgarayn lahaa kheyraadkaas oo leh bad leh xoolo leh beero iyo sector kale oo hadda Puntland soo kordhaya oo mining-ka ama dahab ha noqoto ama petrol ha noqoto hadda sidaa ka warqabtaan dowladda federaalka heshiisyo badan bay dowlado badan la saxiixanaysaa heshiisyadaas badankooda dadka saxiixaya kama fakeraan mustaqbal dheer sheekooyin raqiis ah waxa jira wax la yiraahdo signing bonus marka heshiis cid la saxiixdo xogaa yar oo cash lagu tuurayo rag badan waxay ka fakerayaan intaas laakiin kama fakeraan implications-ka waxa ay saxiixayaan iyo dhibaatada ay Soomaaliya ku keeni karto marka maalinoodu aad arkayseen wasiirka batroolka oo federaalka arrimo badan buu ka hadlay uu saxiixay ceelkii holhol uu ka mid yahay marka regiono xataa aan gacanta ugu jirin federaalka oo aysan dadkii regionskaas mas'uulka ka ahaa kala tashan ayay heshiisyo la galeen sharikado shisheeye arrimahaas marka waa arrimo ku tusaya in wada hadal la'aanta ummadda Soomaaliyeed iyo wada shaqeyn la'aanta ka dhaxeeya regionska kala duwan ee federaalka inay caqabad weyn ku noqon doonto mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed Puntland diyaar bay u tahay inay dowladda federaalka la fariisato aragtiyay ka qabtaa dalka sida uu ekaan doono sida ka warqabtaan madaxweyne Dani markii xilka loo dhiibay madaxdii u timid madaxweyne Shariifka iyo madaxweyne Farmaajo waxay isku dayeen inay dhexdhexaadiyaan aragtida Puntland iyo aragtida federaalka in la isku soo dhaweeyo in la helo hab lagu wada shaqeyn karo dowladda Puntland oo soo qor dhiibatay diyaar in u tahay muujisay nasiib darro madaxweyne Xasan wuxuu muujiyay in aan diyaar u ahayn dialogue inuu dhaco waad aragteen ma umaleynaa press release-kii ay soo wada saareen madaxweyne Shariif iyo madaxweyne Farmaajo oo arrintaas ku saabsanaa inay ku fail garoobeen dhinaca failure ka yimid uu ahaa dhinaca federaalka Puntland marka waxay meel kasta ka cadeynaysaa in wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed isku keeni karo oo lagu wada shaqeyn karo in meel kasta oo fikradaha kala duwan lagaga discuss gareyn karo si fikrad consensus ah oo dalkan dadkii kala tagay la isugu soo celin karo runta marka isku sheegtaan ama runta isku sheegna Soomaali haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed ummad dhib dhexdhacay ummad nin walba mooradiisii sidii walaashay Zahar u dhigtay hadalka ama goofkiisii dib ugu noqday ee kala baqacararay aamin isdarro badan ee dhex taalo sidii kalsooni loo abuuri lahaa marka oo bakhdintaas ummadda Soomaaliyeed u kala dhex jirta mataqaanaa loo daweyn lahaa boogihii iyo dhaawacyadii gaaray loo dhayi lahaa assurance loo siin lahaa inaan cidina cid dominate garaynayn laakiin dalka aan wada leenahay inaan ku wada noolaano aan khasab tahay siday khasab noogu tahay inaan wadamada dariska la noolaano inaguna inaan wada noolaano inay khasab noogu tahay marka ummadda Soomaaliyeed waxa ka maqan dialogue wada hadal isfahan Puntland goob kasta iyo madal kasta iyo meel kasta oo wada hadalkaas iyo dalka wixii dantiisu ku jirto inay fariisato ay diyaar u tahay intaasan ka leeyahay doorka qurbo joogtu marka haddaan hadalka uga baxo muhiim buu Puntland u yahay siduu u ekaan doono sanduuqaas aan sheegay waa idinla soo wadaagi doonaa jaaliyadda reer Puntland jaaliyadaha kale oo gobolada kale oo Soomaaliyana runtii best practices waa jecelnahay wax kasta oo tallaabo fiican ee Puntland ku dhaqaaqday inay la wadaagto walaalahooda gobolada kale si ay uga faa'iideystaan maxay leedahay tajribooyin badan baan ka soo marnay muddo badanna Puntland waa dhisneyd
marka intii yani ay ku faadhici lahaayeen wixii best practice ah oo Puntland hayso oo ku guuleysatay kalama bakhayleysa inay la wadaagto sanduuqan marka insha Allah sidoo way qaan doono idin la soo wadaagi doona laakiin waxa isleena waa sanduuq runtii sida aan u aragnay muhiim ah in la sameeyo markii la sameeyana waxa weeye dawladda Puntland kaligeed go'aan kama gaarayso sanduuqaas dacmiga ku jira meesha uu marayo waxa la dhisi doonaa guddi ka kooban dawladda Puntland ganacsiga Puntland iyo qurbo joogta Puntland waxay fududeyn doontaa donoriska intii salad eber ah lagu tuugsan lahaa marka tiraahdeed lacag intaas la eg baan haystaa oo aniga iska ururiyay oo qurbo joogteedii iyo ganacsatadeedii iyo dawladeedii ay contribution ka geysteen liability-ga donorku inuu maajgareeyo ama wax ku daro way ka fiican tahay markaad tuugsi gacan mara la oraysid marka ma rabna inaan tuugsano si dignity ku jirto inaan dalkayga u horumarsano tusaalaha idinkugu fiicanna waxay tahay dekada Garacad oo maanta ah meel dad Soomaaliyeed ganacsato Soomaaliyeed ay dhisteen oo aan ahayn wax dawlad iyo dawladda shisheeye midna laga keenay marka hadalka waxaan uga baxayaa magaaladiinan dad walaalo ah Soomaaliyeed isku duuban runtii mararka imaan jireen sida hadda u wada fadhidaan dad kala duwan oo dad gobol kala duwan ka yimid aana tihiin Soomaalida dadkii hore flight 13 ma tihiin waxtiin dad la fi horena de waxa lagu xantaa dawladnimada wax ka garanaysiin jiil hadda waxa soo baxay aan dawladnimo arkin waxa soo baxay 30 jiro indhihiisu arkeen Somaliland kaliya Puntland kaliya xamar kaliya Hirshabelle kaliya ma garatay marka waxa loo baahan yahay dad Soomaalinimadii iyo barisamaadkii iyo walaalnimadii iyo wadajirkii iyo dawladnimadu waxay dadka fahansan inaysan kala bakaylan in jiilka cusubna la wadaagaan idinkuna arroomooda u noqotaan midnimadaas iyo wadajirkaas ma maasantiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسود وين دمان dadka sharafta leh halka nagu soo dhaweeyay rag iyo dumar gobolkan degan aad iyo aad u mahadsantihiin mahadnaqa wasiirkan la wadaaga hadal badan dhihimayo waqtigu waxa la sheegay inuu yar yahay doodna macnaha inuu wada hadal iyo su'aalo ay shirshiri karaan laba qodob baan ka hadlayaa oo kooban midi waxa weeye barnaamijkii doorashooyinka Puntland ee gashay dimuqraadiyiinta ahaa oo aan rumud ka ahaa barnaamijkaasi wuxuu ahaa barnaamij himilo u ah Puntland muddo dheer waqti dheer buu qaatay 25 sano waa la sugayay 15 sano ugu dambeysana waa laga shaqeynayay saddexdii dawladdu ugu dambeysay runtii oo faroole iyo gaas iyo danigii kuwaad iyo kii labaadba hawshaasi way socotay meel kastaba ha soo maree waxaa hadda noo hirgalay golihii deegaanka inaan golayaashii deegaanka doorashooyinkii in la sameeyo 36 degmo ayaa 8 gobol oo Puntland ka hirgalay arrintaasi arrin taariikhi ah oo himil ah oo la sugayay oo ballanqaad dadka reer Puntland la galayna way ahayd runtii ujeedada maxay ahayd aan kala hayn inaan fulino barnaamijkaasi annaga si gaar ah wuxuu nooga dhignaa dooda federalismka ee Puntland iyo dowladda federaalku muddo ay ka doodaan qadiyadana Puntland ay saldhigga u ahayd hirgelintiisa bay naga ahayd mararka qaarkood waxay dhici jirtay marka aan dowladda federaalka aan doodayno ونظامك فدرالك كدودين اللي يراهدون نوي وحنا ما دانتان دولات كلا oo dhexe oo gorow fadhida baatihiin marka idinkiina wada haysan waa filim weyn marka xujo weyn bayna waa anagu waa xujo baxnay xujadaas ay ahayd aan ka baxno marka dhinaca falsafiga ah barnaamijkaas wax weyn buu nooga dhignaa barnaamijkaas haddii uu saar noogu hirgalay oo maanta ay jiraan 8 xisbi siyaasadeed iyo 36 degmo oo la doortay xujo kala hortaala xujada kala hortaala waxa weeye inaan golayaasha deegaanka ila doortay ka shaqeysino inay noqdaan kuwa adeeg fidiya hirgala dadku ay ka arkaan wixii himilada ay ka filayeen aan fashilmin attractive aan ka dhigno hanaanka dimuqraadiga ah hawshaas oo ah hawl aad u adag u baahan wax badan aqli badan u baahan ayaan sugaysaa inaanu hirgelino hawshaasina waa naga go'an tahay waxa kale oo hortaala taak bacdi in aanu hanaankii aan soo maray oo dimuqraadiga ahaa dib u eegno oo dib u milicsano wixii naga khaldamay aan dib u eegno haday tahay shuruucdii doorashada iyo kii dastuurka iyo wadooyinka aan soo maray hawlahaas aan dib eegis ku sameeyno oo annagu hadda waqti haysanaha oo degan oo loo dhan yahay oo dood laga galay arrintaas aan u diyaar garowno wareegga labaad oo soo socda oo doorashada golaha deegaanka iyo tii baarlamaanka iyo tan madaxweynaha lagu galiyana annagoo diyaar ah hawshaas aan ka galo
maxaan ka baranay hanaanka doorashooyinka loolan adag buu ahaa dowladda federaalka baa nagula dagaashay runtii oo sabab hadeer anagu aan fahmi karin uga hortamay oo jamhada nagu samaysay oo mucaarad loo kala nagu samaysmay oo ma dhib yarayn oo dadku isbedelka ma jecla oo xerada inay iska joogaan bay rabeen laakiin hal wax baan ka baranay rabitaanka dadka ayaa biraha dadku waxay rabeen xerada inay ka guuraan marka taa ayaa barnaamijka riixaysay waxaan kaloo ka baranay doorasho inay suurtagal tahay Soomaaliya meeshii nabad ah oo ay jirto ka goonaasho iyo hoggaan dhab ah in dadku doorasho ay rabaan taasna waa cashar kale oo aan ka baranay oo lagu dhaqangelin karo Soomaalida inteeda kale waa aragnimada oo noqon kara marka barnaamijkaasi hadda himilo wuxuu noo yahay in xeradii si kama dambaysi looga guuray oo cycle-ka soo socday doorashooyinka barnaamijka anagu ka fara buuxsanay aan hawsha fulino xisbiyadii mucaaradka ahaa ee doorashada ku jiray hadda waxay ka qayb galeen dawladda ilaa 4 baa waxay ku leeyihiin kuraas oo waxaan sii tijaabinaynaa inay dawlad coalition hadhow iman karto marka mucaaradkii kuraasay dawladda wax ku leeyihiin marka taasoo maaragtay deganaanshaha runtii wax ka keenaysa waxyaalaha ka baran waxa ka mid ah hanaanka wax badan baan markii hore waxaan ka qaadanay Somaliland waa aragnimadeedii oo ahaa 3 xisbi oo sharciga loogu waray way noo shaqeyn weyday markii doorashada dhex galay oo 5 xisbi baa soo baxay qaar baa siyaasiyiin loogu horreeyay marka hawsha waa noo socon weyday waxa kaloo noo socon weyday waa aragnimo kooyada Somaliland aan ka dhaxlay oo ay 10 sano in 3 xisbi meesha loo xiro marka iyadiina labada qodob waa bedelay hadda xisbiyaduna waa 8 10 سنة ما جرتي سايكل كسته وحرمنا دورشة إنا فرخ لكن أوري إنه threshold حسبي برسنتيج كارهم معين ولقيه شيء دونا كنا إنه سيدا حسبي وكل نوضه مركا ويرك نوين كاس عن نسوان لنا نوهر السكة على ما ندي ساسون بين نوضه قطب كان تاسان روب حياة قطب كنا رواينا دول مرة قطب كلا وحوي وحد مغشان مرة وضوط كصاب سن دولة الفدرال كاي بنتنا يمحيس كوهيا ترنتي وضوط حنا ضد بين السويديو حسن يدولة سهداد ويدي سيد مدحوين حسن شيخ يدولة سهداد ويدي واحد لها يعني دي مثلا أما واحد قاري دوني ساعة أما وعري سلطهي أما سؤال يسكف ضد رنتي بيوجد شواب لكن حنا وضو سيدا اسمها رنتي وحلا يسكوها هي ودولة ديسكي سوالي يسكوها هي دور ده سهتاجن دولة نوعية يعني صمينا حجيم مشان كأيدينا سيأوض الله قيب سنية سيادة القوة كان هي إنكسون نظام كفدرال كالغاطي doodaas ayaa taagan waa wad qaybsiga ku saabsan taa weeyana waxa taagan waxaana soo kordhaysa in dawladood baa ay Soomaaliya soo martay ilaa iyo intii burburkii 3 dibadda lagu soo dhisay inuu saan ku doodo oo dawladda Carta iyo Imbagaatigii koowaad iyo Djibouti labaad saddexna waa saddexdii gudaha lagu dhisay oo 12 ka soo bilaabatay 2012 Xasan Sheekh koowaad tii ku xigtay oo 2017 farmaajo hogaaminayay iyo Xasan Sheekh labaad ee 2022 saddexdaad dawladood oo dhamay saddexdu waxay u muuqdaan inay dhinaca kale oo ka horjeeda saddexdii hore oo u socdaan oo saddexdii hore waxay ku dhisnaayeen nidaamkan dib u heshiisiinta iyo federaalka iyo soo dhawaanta ay keenayeen oo badalaabo qaadiyay saddexdan dhamana waa dib u gurasho ama reversal saddexdii talaabo hore loo qaaday oo in taladu ay ku ururto hal gacan iyo hal meel iyo murahaasay maaragtay ku salaysan tahay doodaas cusub oo timi ayaa keentay marka loolanka Puntland xageedana ka yimi وانا مد سو سعودي وهدات فيرسد مركي عبد الولي اللي دورت حرير كواقونا مركي دين اللي دورت حرير كواقونا حدير مركي الدين اللي دورت حرير كواقو شيدان انت اسوقف مرة هذه كرتو دانا قارة ويوقع إليهن أما واحد قارة ومضو ضيان وحوي دودا حسب قابل ماشا تعالى مركا وحنا نسكوها إن عبدالكم ميشان كان لها صدحنا رتيف ورسمية وميس كسارة وصومالي دو هذا إلا هاي أيانا كسيرا هدية وفي ستي دودا الصومالي دا صدحنا مدو حوي إنا كانت تقنو وقديد السومالي لأنه هجامينيسو وقديد مقدر ميس كسارات صدح لسنة وقدام يسي ثم ناصر له هرجع كهريان فرنتي أنت أنا وطبعشك وصليسن دودا كنت أنا وحوي ضربوا إنه فدرال نقطه حتى روح سوكر لي دودا كلو أرما فدرال كنا نقول يا هاي وكان فدرال لو جورا ديو داسنا وحا هجامينيسا أم هرسيد وهاي بنتلان وأنا ماشي الناس بها هلو كلا نبض كلو دودا صدحات وسوكر لي سنة وكأيمان السحمرنا وأدركوا إنه نقضوا دورة سنتراليسيد أي نقطة مركز سنتراليسيد الدولة ده يمد الفدرالة يمد كلاكتاجة تدح لنا نتيف أي سوماليا يلا مد بابنتنا هجامينيسا dooduna halka
ayay ku salaysan tahay wax kastoo kale oo laga dhahaa runtii waa fududaysi iyo si kale wuxuu dhib weeye marka doodaasaa jidha doodaas hadda naga dhex taagan awgeedna dowladda hadda jirta way sii siyaasadaysay oo annagoo isku hayna qadiyadahaas waaweyn oo masiiriga ah oo dastuurigana ah ba haddana waxaa muuqda in waxyaalihii kale oo dalka naga dhexeeyey oo sida resourcigii iyo deeqihii dunida iyo kulli in la siyaasadeeyey hadda waxbarashadii oo kale iyo waxaad ogtihiin idinku hadda maraykan baa joogtaan markaan waddanka federaal waxaan filayaa inaysan jirin imtixaan la yidhaahdo imtixaanka centralizerka ah ee dowladda maraykanku inuusan jirin baan filaya waxaan filayaa inaysan jirin shahaado la yidhahdo shahaadada dugsiga sare ee maraykanka wax la yidhahdo inaysan jirin baan filaya annaga waxa weeye waxaa jira arday aadan weliga arag uu iskuulku dhigto aadan war u hayn oo aadan noloshiisa wax ku darsan oo macallin u tababarin oo qalab u geyn oo aadan imtixaan ka qaadin oo aadan waxba noloshiisa ku darsan 12 sano wax baranayo ayaa markii uu galaas 12 ka baxo waxa uu horreeyo u baahnaanayo ay tahay inuu scholarship aado ama shahaado qaato dowladnimadii waxay noqonaysaa isbaarada koowaad oo ah ciqaab taas oo aan ahayn haddana awoodi dowladda federaaliga ah marka waxyaalihii ana waxyaalaha waxaan isku haynay masiiri ah oo dastuuri ah laakiin wax kastoo ka soo haray dowladdii waxay noqotay inay rikaato u isticmaasho oo ah haddaydan principalka aan isku haynay ka tanaasulin wixii kalood xaquuqda u lahaydeenna dee ma helaysaan dowladahaas way taagan yihiin laakiin haddana waa iska soconnaa annagu dhinacayaga wada hadal baanu diyaar u nahay sida wasiir ku sheegay mar kastaba gogol baan fidinay markii doorashada dowladda dib loo doortay arrintaasi weli way taagan tahay laakiin qadiyadaasi dooda ayaa iyaduna dhinaca kale ka taagan waxaa kaloo hadda dee iska soo kordhaya walwalka kaloo awood aan qabno oo ah arrintan proxiga ah oo dalka kusoo kordhiyo heshiisyo iskhilaafsan iyo dana kala gedisan oo ishardanka ah anagoo saa unugul Soomaalida ay qaybsan tahay taasina walwal gaar ah ay leedahay waxaa kaloo walwal gaar ah leh arrintii cunaqabataynta hubka oo la qaaday inkastoo dareenka laga lahaa ay ahayd ahaan karo mid wanaagsanaa haddana runtii waxay keentay walwal gaar ay keentay oo dee waxaa socda qulqul qayr caadi ah oo huba dowlad xakamayna aysan jirin sharciyadayna aysan ka jirin iyo sansaan colaadihii sokeeyaha oo meelaha qaarkood ka soo bilaabanaya waxaasoo dhammi waa iska walwalkaasoo jira marka meelahaasay taagan tahay waxaan rabaa inaan warka soo kabo oo idinka idin siiyo wixii su-aalo iyo comments oo dadku wadaag aad baa u mahadsantihin si wanaagsan